Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشا قيمة قدرت له واحد نو برتي مرول بنحن سو قدبنا برنامج سلامة عيد مقالة القاهرة. هذانا وحن قد قلنا برنامج سلامة عيد وأنكم بلاوينا ولا المقعة هذا نورو معلمي والله يا سهل كان سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتوا عليكم سلامي أمد المسلمين كدمانتيو أمد الصومالي ده جارهان دتكن دكنول dadka Soomaaliga nool ee salaamahay way balaha ciid wanaagsan geeka eed aan faraxsana anoo way baan ku salaamahay ummadda muslimiinta ummadda Soomaalida saaxiibayalkay qaraabaday waalidkay iyo walaalogay dhammaan way baalan kasoo yaani muuqaalkay iyo aragay kasoo yaani hadalkay kasoo aan ku salaamahay walina laha ciid fayl waa Cabdulmudallib Ibrahim Umar waxaan ka salaamayaa all my family oo ku nool dibadaha dunida gacaladeeda waxaan ka salaamayaa ugu horan hooyadeyda qaaliga ah Nadiif Nuur Faarax oo aan aad u jeclahay runtii waxaan kaloo aan u tacsiyeenayaa maanta ay tahay tacsida abeeyga Abi Ibrahim Umar Sabriye iyo wali waxaan salaamayaa all my family meel walba ay joogaan Ethiopia Qaahira UK iyo waliba Soomaaliya iyo waliba Kenya waxaan halkaan kaloo ka salaamayaa saaxiibadeyda ku nool Qaahira gaar ahaan reer Bahlos waxaan kaloo ka salaamayaa ما حبيبتي أنا دونك وجعلهاي رون أحمد والله هالك سلامة صح وحماشان كسلامة يا ضمان ومد الصوماليات ميلو البي جوكتو يو حكلو ماشان كسلامة يا رويدي أو جوكتو صوماليا يو ولالك وجو استراليا ولا شيء أو جوكتو استراليا أيضا يو حكلو ماشان كسلامة ضمان ومد الصوماليات ميلو البي جوكتو سلام والله المقعة مقعي وعمر شريف والله أدوه فرصة أنا كفاية سنة برنامج سلامة عيدة يا هل كان كسلامة صح waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan khaasatan Soomaalida dunida dacaladeeda meel alla meesha ay joogaan ayaan halkan ka salaamayaa hooyadeyda Xabiiba Cabdi Ibrahim oo ku magac dheer Shariifo oo magaalada Muqdisho xaafadda Barmuud ay joogto ayaan halkan aan ka salaamayaa walaasheedii Bool Nuur Shimooy oo ku nool dalka Mareykanka macal caruurteeda macal seegeeda ayaan halkan ka salaamayaa anigoo oo ah walaalkeeda Umar Shariif oo halkan aan ka salaamayo ummadda Soomaali meel walba ay joogto ilaahay waxaan ugu baryaa bashbash barwaaqo inuu meel walba ay joogaan inuu ku siiyo dalkeenana nabad Allah noogu dhigo sanadkan sanadkiisa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nabad bashbash barwaaqo saaxiibkii iyo markiino saaxiibyalkii reer Shaad Freeska ya reer Shaad nacnac kulli reer Saafi maxadile reer Saafi waxaan leeyahay ha guuleystaa ma sha Allah ya waa dad aad u dadaalayo weeye saaxiibkayga qaaliga my best friend oo Ingiriiska jooga Jibriil Maxamed Jibriil la dhahayna halkaan ayaan ka salaamayaa aniga waxaan soo salaamayaa aanu ku magac dheerahay magaalada Qaahira aniga dhalinyarta ay yaqaanaan jiilkiisa okay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ka faa'iideysanaya fursadan ciidan ay siiyaan shabakada warbaahinta Daynile iyo Axmed Cabde waxaan halkaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u leeyahay ciid wanaagsan kullu aamin wa antum bikhair marka xigta waxaan salaan kala ilaab ah u dirayaa waalidiinteeda aan aad ku jeclahay oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi qaasatan waxaan salaamayaa hooyadii aan u jeclahay Caroom Maxamuud Ebakar sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay oo ku nool magaalada Nairobi dalka Kenya sidoo kale waxaan salaan qaas ah u dirayaa xaaskayga aan aad ku jeclahay oo Fadxi Maxamed Faarax oo ku nool magaalada London cariga dalka Ingiriisiga sidoo kale waxaan salaan kala ilaab ah u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u leeyahay ciid wanaagsan kullu aamin wa antum bikhair bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan waxa ku sugan milkiilaha shabakada warbaahinta Daynile Axmed Shaali Kalay مدن أحمد شعلي كلا أديو كفاية سنة برنامج كان غالي أيكو سيسي شبكة warbaahinta Daynile Axmed Cabde halkan ayaa ka salaamaysa
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى كان كسلام يا رمان أمة الصومالية ميلو بجوجان الدنيا المسلمة وحنا عيدا كلا إلهي سبحانه وتعالى وحنا إلهي كبرينا إنه إلهي سكانه قلوبت إسلامك إنه إسلامك مدايو إسلامك كرديو مد واحدة وحنا كلنا نتهنيين يا رمان أنت تقانو صاحب بداية خاصة فتفتاح عبد علي شي محمد كل قيارته ودن هويدي فاطمه iyo eedada Faadimo Rooble kulli dhamaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam oo antu baqeer ay walaal magaca Umar Abdullah Yaasiin ay Umar Abdullah Yaasiin maanta fursadan oo xamar cad uu ku siiyay yaa halkan ka salaamaysa waxa ka salaamay dhamaan familiga dadweynaha Soomaaliyeed familiga kala ah eedada Nasr Yaasiin iyo eedada Safiya Yaasiin iyo adeerka Cabdirasaaq Yaasiin iyo Abi Abdullah Yaasiin iyo adeerka Maxamed Yaasiin iyo abtigay Maxamuud Bidaan iyo abtigay Maxamed abtigay Cabdiladiif iyo ayada Aisha يا هبرتي قرن يا هبرتي سعدي يا دمان dadweynaha Soomaaliyeed halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan asxaabtayda waalidkay hooyaday Saadax Xaashi walaalkay Cabdiraxiin Maxamed Farax walaashay Badriya Maxamed Farax waxa kale halkan ka salaamayaa dhamaan asxaabtayda oo ku kala dhaqan dalka Malaysia Pakistan Saudi Arabia kulli magacantooda ma soo koobi karayo dhamaantood kulligooda isgaranayaan wixii magacayga muuqayga yaqaan dhamaantiin aad baan wada salaamayaa man leeyahay ciideeda nagula ciida caafimaad qab bashbashiyo barwaaqo insha Allah magacaygu aadan Cabdullaahi weeye oo ku magac dheer meelaha barkood Santuur okay walaal aad fursadan xamar cad oo ku sii ka faa'iideysanaysa yaa halkan ka salaamaysa halkan waxaan ka salaamayaa gobolka Soomaaliya oo dhammaan salaamay marka hore waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum bil a'maali saalihaat si gaar waxaan salaamayaa gobolka Soomaaliya galbeed gaar ahaan degmada laga hido iimay bari yaa salaamaya waxa kale oo salaamaya xaga dalka waaye laakiin dadka waxaan salaamayaa adeerkay Maxamed Xuseen iyo zawjadiisa wiilo iyo wiilkiisa Ayuub iyo labadiisa gabdhood oo ku nool dalka London Ingiriiska magaalada London Mustafa Shariif oo isna saaxiibkay oo jooga London man salaamaya waxa kale oo salaamaya qaraabada iyo ehliyadeyda iyo inta magacayga iyo minjahayga taqaana salaamaya waxaan salaamaya walaalahay oo ku nool Jigjiga waxaan gaar u salaamaya xaafada suuq Ableele si gaar oo salaamaya waxaan magaalada Qaahira salaamaya xaafada Ardulwa saaxiibay badan joogo Axmed Askari Abshir asxaabtayda ma soo koobi karo kulligood baan salaamaya kulligoodna waxaan leeyahay kullu caam wa antum birajaa'i bisalaam magacaygu waxaa yidhahdaa Ibraahim Isaaq Malaaq oo ku nool wadanka Qaahira waxaan ka salaamayaa aabay Isaaq Malaaq iyo hooyadeeda Faadimo Maxamed Axmed iyo dhammaan dhalinyarada Qaahira asxaabtayda iyo inta muuqaalkay iyo muuqaalkay taqaano iyo dhammaan shaqaalaha sharaftada TV-ga ayaan halkan ka salaamayaa waxaan leeyahay kullu sunna wa antum tayyibin ya khayr qaadna wa salaamo okay halka walaal magacaygu waxa la radaa Mustafa Maxamed Cabdullaahi insha Allah Djibouti ka yimid tacliin baan u miday ciidan maaragtay ciid mubarak baa leena dadka walaaleena muslimiinta iyo dadka maaragtay muslimka maaragtay dhawaan meel wada joogan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidan maaragtay isaga nagu manaystay muslimkana ku manaystay waa farxad qaali ah maaragtay waa inaan ka faa'iideysano dadka walaaleena maaragtay kala tagay waa inaan soo kala isku dhexdhexaadino dhexdeena waa inaan maaragtay farxad iyo maaragtay nimcad maaragtay aan ku wada noolaan leeyahay maaragtay hambaliyo Faadmo Fahad ayman baan faad yaa halkan ka salaamay ugu horeyn muslimiinta meel kasta ay joogaan marka xigta Soomaali weyn meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa ehelkayga meel kasta ay joogaan saaxiibayaalkay meel kasta ay joogaan caruurtayda meel kasta ay joogaan dhammaan waxaan salaamayaa dadka reer Qaahiro oo dhan salaan qaali ah waxaan salaamayaa qolada wadata fiidiyowga salaamaha salaan qaali ah ciid mubaarak aan leeyahay ciid wanaagsan caafimaad caafimaad Rahmaan Rahiim magacaygu waa Salaad Bashir Bootaale waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka meel walba ay joogto qaasatan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyaday Xaliima Nuur Faarax iyo aabahay Bashir Bootaale iyo dhammaan saaxiibadayda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr meel walba ay joogtiin waa salaamantiin ciidan ciideeda waxaan Ilaahay ka baryaa inuu idin gaarsiiyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qaasatan dadka reer Qaahiro waa dhamaantiin waa wada salaamantiin waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmaanir rahiim ugu horreyn magacaygu waxa waaye Sakriya Cabdi Maxamuud oo Sakriya Fooy Cabdi lagu magacaabo maanta ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta adduunka meel kasta ay joogaan waxaan u duceynayaa
walaalaheen Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan geeyga Soomaaliya halkan waxaan ka salaamayaa reer Food Cadde oo kala ah Duniya Food Cadde Samson Food Cadde Naciima Food Cadde Maxamed Food Cadde Cabdullaahi Food Cadde Deeqa Food Cadde Firdowso Food Cadde Maxamed Food Cadde Maxamuud Food Cadde Yaasmiin Food Cadde Xasan Food Cadde Jibriil Food Cadde Xuseen Food Cadde Aadan Food Cadde Muna Food Cadde Xaawo Food Cadde Felis Food Cadde Deeqa Food Cadde Firdowso Food Cadde iyo waxaan kaloo salaamayaa hooyada Aamina Jimcaale Cali Sow oo Soomaaliya joogto iyo waxaan salaamayaa Ubax Maxamed Maxamuud Warsamo Maxamed Maxamuud Hani Maxamed Maxamuud iyo waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay meel kasta ay joogaan saaxiibaday akhyaartay inta maqalkii muuqayga taqaan dhammaan waan salaamayaa waxaan si khaas ah u salaamayaa macallimiinteeda adduunka meel kasta ay joogaan hadday ahayd kuwa suuq quraanka soo baray hadday ahayd kuwa iskuulka dhammaan waa salaamayaa assalaamu calaykum magacaygu waa Axmed Nuur Ibraahim Cabdi waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta caalamka meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyaday Sanab Cismaan iyo walaalahay meel kasta oo joogaan iyo asxaabtayda iyo inta muuqayga taqaano dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan u duceynayaa ummadda Soomaalida ee ku dhibaataysan wadanka Soomaaliya waxaan leeyahay in Ilaahay idin saqiro dhibkiina iska duqeeyna assalaamu calaykum kullu caam wa antum bikhayr ayaan ummadda jamiican ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka joogaan khaas ahaan ilma Xaaji Ibraahim Sheekh Xuseen khaas ahaan reer Sheekh Xuseen iyo reer Sayyid Ibraahim iyo khaas ahaan ilma Xaaji Maxamed oo dhan habar cibaado Xaaji Caasha Xaaji Faadimo Xaaji Nimco Xaaji Absaan Herri all of them family oo dhan baan halka ka wada salaamayaa khaas ahaan ardayda khaas ahaan Qaahira wax ka barata kullu caam wa antum bikhayr waa aniga oo Xasan Xuseen Calaah xasakan cali yaqaan waxaan halkan taaniyad u gudbinayaa dhammaan dadka Muqdisho ku nool Ilaahay waxa aga baryayaa inuu dhibka naga qaado Soomaaliya inuu Ilaahay dhibka ka qaado Ilaahay ka baryayaa waxaan maaragtay halkan maanta uu salaan u gudbinayaa Xaaji Cumar Cali ee u gudbinayaa iyo xaaskiisa waxa uu gudbinayaa Xaawo Xaaji Cali waxa uu gudbinayaa Xaaji Sharmaan waxa uu gudbinayaa maaragtay Xamdi Maxamed Kadiye waxa uu gudbinayaa Aamina Kadiye waxa uu gudbinayaa reer Kadiye dhammaan ayaa u wada gudbinayaa waxaan u gudbinayaa Qadiijo Sheekh Cumar iyo walaal magaca Nasr Nuur Maxamed Nasr Nuur yaa halkan salaam marka hore waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr marka xigta waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr marka xigta waxaan halkan ka salaamayaa maamadayda qaaliga ee aan aadka u jeclahay oo lagu magacaabo Bishaaro Salaad Xasan oo ku nool Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaan leeyahay hooyo ciideeda kale ku gaar barbasho iyo barwaaqo kullu caam wa antum bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa abtigayga qaaliga ee marna ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan magac laga maskiin maaha waxaan leeyahay abti ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr meel walba aad joogtana bashbash iyo barwaaqo ayaan ku rajeynayaa marka xigta halkan waxaan ka salaamayaa walaalayga qaaliga ay dhaleen hooyaday aabahay oo lagu magacaabo Xasan Nuur Xuseen Nuur Shucayb Nuur oo ku kala nool Soomaaliya iyo Kenya waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan abtiyaashii ilma salaad iyo habarreyga ku nool Soomaaliya Afrika America Europe Asia dhammaan waxaan leeyahay abtiyaal iyo habar yar kullu caam wa antum bikhayr mid xigta waxaan ka salaamayaa asxaabtayda oo kale Yusuf oo ku nool Mareykan Cabdicasiis Ali Ibrahim oo ku nool Sweden Norway waxaan halkan ka salaamayaa oo lagu magacaabo salaamayaa saaxiibadeyda qaaliga ee marna walaasheeda oo halkan garabkayga taagan oo la yiraahdo Binti Cabdullaahi oo ku magac dheer Binti America waxaan leeyahay Binti kullu caam wa antum bikhayr ciideeda kale bashbashi barwaaqo halkan waxaan kaloo ka salaamayaa walaalahayga abtiyaashay dhal oo igula nool Qaahira gaar ahaan xaafadda Ardulo waxaan leeyahay abayaal kullu caam wa antum bikhayr insha Allah ciideeda kale waxaan rajeynaa bashbashi barwaaqo magacayga binti halkan ka salaamay waxaan halkan ka salaamayaa baayideyda qaaliga oo ku nool wadanka Mareykan iyo waxa kale halkan ka salaamayaa adeerkayga qaaliga oo ku nool wadanka Canada iyo walaalahay ku midooda waxaan kale halkan ka salaamayaa hooyaday macaan oo ku nool wadanka Yemen iyo waxaan kale halkan ka salaamayaa abaayaday oo ku nool wadanka Yemen ku midooda waxaan leeyahay ciidan ku gaara السلام عليكم أنا مجا محمد صالح نور إن فنان كقاهرة وهالك عنك سلام يا فمن كي كل جوجا يوروب
soomaaliya meel walbay joogaan asxaabteeda reer baalos meel walbay joogaan halkan waxaan ka salaamayaa xaaskayga xalaasha ah xaawalul waxaan halkan kale ka salaamayaa maamadayda oo ubad ii dhashay maamo farxiye furtun asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya meel walbay joogto waxaan u rajaynayaa nabad كل سنة وأنتم طيبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ويبلغ مختار مدة يرى ويمي لنك السلام ما قرابة لما مركز ودروان أو كروان من رئيس نقارشة السعودية العربية خاصة غير أباكوي ولا لي خديجة هو كلك سلام قرام لما قرابة أنت نوي كلك سلام قرابة يكون نول بيدا dhammaan reer baydhabo wada salaamay goonahan aawkay iyo aade iyo familkan dhammaantood ka salaamay way kala meelan ka salaamay qaraabada ay ku wada nool Australia kulisho salaamay iyo asxaabtay reer qaahir dhoon wada salaamahay oo saaxiibkay kamid yihiin marka insha Allah dhammaan weel raayis Soomaaliyeed noo meelan ka salaamay marka eediyada siin salaamay assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halka ku sugan ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed ee juniorka magaca عبد العزيز محمد عيسى عبد الوهاب محمود علي حسن احمد محمد wuxuu ka faa'iideysanaya barnaamijka fursada ciida ee maanta ay siisay shabakada warbaahinta Dayni iyo Axmar Cade halkan ayaa ka salaamaysa wallahi ugu horeynta horta ciid wanaagsan muslimiinta oo dhan meeshan oo ka salaamayna gaar ahaan qoyskayga hadda u soo jeesto hooyadii adduunka ugu jeclaa wallahi xaawo nuur maxamed walaashii fayd daahir walaalkii bashiir ilmaha abtiga oo ahay intii yani taqaanto fiiskii dham taqaanto oo salaamaya ciid wanaagsan meel walbaan joognano aad iyo aad aan igu soo hambalyeynayna assalaamu calaykum ay walaal adigana halkan ka salaamaysa adigoo fursadan ciida qaaliga ee ku siisay shabakada warbaahinta Dayni iyo Axmar Cade halkan ayaa ka salaamaysa waxaan kul caam oo antum bil khayr muslimiinta oo dhan dunida ku nool maanta waan salaamaya in waxa halkan kul salaamaya intii maqalkii taqaan waxa halkan ka salaamaya hooyadii Maxamed iyo aabe Maxamuud Cali iyo walaalay oo dhan dhamaanteen maqlaysa وأنت مغلقي تقام بوا سلامة. والله العظيم كفايزنا برنامج كان كوسيسي شبكة ورباهين الديني اللي أحمر عدل. هل كان كسلامة سمر فرد؟ كل عام وأنتم بخير كل مسلم وسلامة يا دمان أصدقائنا وحنا سلامة يا أمة الصومالية وحنا لا يعيد ونكسر ملول بعجوتان وحنا سلامة يا فمل كيجا ويدي حسن محمد عمر أبهي وعليه دمان أصحابتي وحنا سلامة يا نادي كيجا هيجن قدامي هيجا دمان اسمرتين تجعل وحنا عيد ونكسر كل عنتو عام بغير. كلا هل كان وحكوا سكان مت كمية جوهر الصومالية كانوا هل كان لو كان إن لا عياران جوهر كمصر مركا عديكوا برنامج كان كوسيسي شبكة ورباهين الديني اللي حمل عدل هل كان يكسلام سمر فرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كسلام يا أمة الصومالية ميلو بيجوكتو قصدنا وحنا كسلام يا هويدي حبيبي عمر حسن وحنا سلام ولا الله يدمر مسلمين دنيرة iyo asxaabteeda oo dalka iyo meel walba kala nool waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair sanadkan sanadkiisa washooshi barwaaq aan ku gaaro mid kamid ah jooyarka Soomaaliyeed ee la ciyaarayay jooyarka dalka Masar marka adigu ka faa'iideysanaya walaal barnaamijkan qaaliga ee ku siisay shabakada warbaahinta Dayni iyo Axmar Cade halkan ayaa ka salaamaysa halkan waxa ka salaamaya ummadda islaamka meel walba ay joogaan qaasatan gaar ahaan Soomaaliya waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo halkan ka salaamaya familkayga hooyaday aabahayga walaalahayga iyo dhammaan inta muuqayga iyo muuqaalkayga taqaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan iyo ciideeda khayr iyo bashbash baraare عبود ولكن يا عيد ونكسن علي عمر الإعلام السلام إبراهيم علي عمر السلام وهويدي أبابي عيد مالا يجوكي جلس لنا السلام يسمعني لنا السلام عيد ونكسن أي والله مقعد إسماعيل علي عمر نحن سلام أبا هواي أدرك السلام محمد نور السلام ولكن واحد أنا السلام الصومالي أنا كان وحكوا سجن مت كمدة عيارتوي ده خرن كصوماليات مدة أو عيارية خرن كصوماليات ما جيز أنا جيدين مشاجع لكن وحن جعلها إنه أسا جيدين شاكم هذه ما عمر خلاص مصر شعب شو عمره وكم قاعد فرنسا مصر فرنسا سيدها دكتور هاي وحتى إن آديات معترف تلك صوماليا وحال كمدة عيارتوي ده خرن كصوماليا هذه كيف إذا برنامج كان خاص كأيكو سيسي شبكة ورباهين الديني لا حمر عدة هل كان يا كسلام مساء هل كان كسلام يا دمان أنت مسلم وما تكعيدي الدنيا ميل بكعيدي وهل كان كسلام هويدي وكنا المجال وطن كفيلان جرام هلسينجو يا أبي وهل كسكنول يولالي دمان وهل كسكنول وهل كان كسلام يا حاسكي وكنا المجال بلدوينه المهيجا أم
waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair intii aragayga muuqaalkii aragayga taqaan shabakada warbaahinta Daynile Axmed Cade halka ka salaamaysa hortay waa ku mahadsantahay shabakada Daynile iyo Axmed Cade wareysiga ay nasiisay inaan halkan ka salaano Ciidul Adha ciida barakeysan ee Ciidul Adha ummadda muslimiinta meel kasta joogaan iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed asxaabtayda oo ku kala nool adduunyada dacaladeeda gaar ahaan bahda madrasadii aan ka imid ee Axmed Gurey iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan adigu ka faa'iideysanaya barnaamijka ciida ee ku siisay shabakada warbaahinta Daynile Axmed Cade halkan ka salaamaysa horta muslimiinta kulli meel walba joogaan kullu caam wa antum bikhair ciidan ciideeda nabad Allah nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa shabakada warbaahinta Daynile iyo Axmed Cade oo ii suurageliyay inaan halkan ehelkayga iyo qaraabadeyda ka salaamo waxaan halkan ka salaamayaa aabahay iyo hooyaday iyo walaalahay oo kala jooga Soomaaliya iyo dibadda iyo waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga iyo gabadhayda aan jeclahay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بألف مليون خير دمانتين وحان له دزوينها صوماليات ملك جوجتان عيد وناكسن حنيد رجنا عيد هذا كلنا توجاران بش يبرواقو نبض يعانو أنا جو أسمد الحباس حن سلام يا دمان ومد صومالي ملك جوجان وحكى له سلام يا بحر حمر عادي أو نسول جلسي إن هو ذا نقص كبسو سلام تينا متى كلام حن سلام يا أهل كيجا أبيت الحباس أحمد هودي سينب شيخ ظاهر عثمان iyo dhamaan ehladeyda waxa kaloon jecelahay inaan salaamo awogey Abbas Ahmed iyo maxay ahayd tolay dhamaan ehelkayga meel kasta kala joogaan waxa kaloo salaamayaa ayadii Xaliimo Sheekh Xasan iyo dhamaan reer Sheekh Xasan Sheekh Ismaaciil wad maasantiin bahadar Xamade أنا فردوس محمد عبد الله halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan ehelkayga meel kasta ay joogaan hooyaday canmine walaalahay dhammaan asxaabteyda inta magacayga muuqaalkayga taqaana ciid wanaagsan ayaan leeyahay ciidan ciideeda farxad iyo reereen insha Allah kuwi ka gaar Allah naga dhigo aamin ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed salaam calaykum anigoo ah haweeyo Axmed Ciid wardheere ee ku nool magaalada Masar waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ee ku nool ee ku iideyso meel kasta adduunka kamid ah waxaan kaloo salaamayaa hooyaday Xaliimo Maxamed Cabdi waxaan kaloo salaamayaa aabahay Axmed Ciid wardheere waxaan kaloo salaamayaa walaalkay Abbas Axmed Ciid waxaan kaloo salaamayaa walaashay Aasiya Axmed Ciid iyo walaashay kale Hadiya Axmed Ciid waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaana jeclaan lahaa inaan ku wada ciidno hal meel السلام عليكم halkan anigoo ah Foos Ali Ibrahim waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan asxaabteyda reer Dugule iyo inta muslimiina السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah Xaliyo Umar Faarax waxaan dhamaan muslimiinta guud ahaan meel walba oo ay caalamka ka nool yihiin u soo jeedinayaa ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair si gaar ah waxaan u salaamayaa dhamaan intii magacayga iyo muuqaalkayga taqaana gaar ahaan xaaskayga iyo wiilkayga Hanad iyo hooyadayda qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو عبد القادر أحمد عبدي وحال كان كسلام يا دمان مسلمين تا وحال لي عيد مبارك جارهم وحال سلام من فم الكيجا أو كلا إفراح أحمد عبدي يو ضحكين أحمد عبدي دمان وحال لي هاي عيد مبارك نول بتوكتين وحال سجار وسلام ولا شيء جهان أحمد عبد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مقعد ويوسف حسن والسلام يا أمد الإسلام كم يقصد شو أنا حلا عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير خاصة دمان أمد الصومالية دي أنت قرنا يسوي حلا عيد ونكسن وما الآدي آد وفرحة بدن أو الإسلام كلنا أي معرفة آد وفرح سنين مركب حلا هاي أمد ميل قصد شو أنا عيد ونكسن دمان إيه الكي أصحاب كذا وحلا كل عام وأنتم بخير هي شقالها سافي استوديو وحن لي هاي دمانتين إذا كان عيد ونكسن وأنا محسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا دمان ومدة الصومالية ملك السي جوجان وحن لي السلام عليكم إن شاء الله بإذن الله كريم إيدان إيد ديدا كعيدة فرحة وكلا إن شاء الله بإذن الله كريم كارها وحن سلام يا ومدة إن دولة جولات كبودلان إن شاء الله بإذن الله كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحن هلكان كسلام يا مسلمين تا الصومالية ملك الدنيا كجوجان وحن سجارة وسلام يا
madaxweynaha Puntland simada salaadiinta cukaasha gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland injineer Salaad Xareed Cali waxaan kaloo salaamayaa reer Cali Daad dhammaan meel walba dunida daafeeda ka joogaan waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga aan jeclahay Qadiijo waxaan kaloo salaamayaa dhammaan muslimiinta walaalahayga meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bil khayr magaciiguna waa Maxamuud Salaad Xareed Cali Daad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anu magacayga la yiraahdo Xuseen Xaaji Maxamuud waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ku ciid wanaagsan kullu sana wa antum bi khayr mid kale waxaan halkan ka salaamayaa aniga hooyaday booliyo xundiye iyo walaalahay Sheekh Abbas Xaaji Maxamuud Yaale Cabdul Qadir Xaaji Maxamuud Yaale Maryan Xaaji Maxamuud Yaale iyo caruurteeda dhammaan iyo intii taqaano muuqaalkayga السلام عليكم وحن سلامي يا أمضة صومالية ميلو بيجوكتو رمهنتي ما توحن كفايدة سنة يا شبكة دلين شبكة دلين ما أنت نوفي سي سلامها رمانتي ما وحن أنت كسلامي يا هو يدي من حاش علي إيو أصحابتي دمان الدنيا دافين ميلو بيكل الجوجان هاتو قارد أمريكا من قارد أفريقيا هاتو كل سلامي يا ضمر يركبوا وحن ليه هاي كل عام وأنتم بخير وحن كل سلامي يا صحفيين الصومالية ميلو بيكونوش هاي الدنيا ده وحن ليه هاي كل عام وأنتم بخير خاصة waxaan si salaamaya saaxiibkayga Maxamuud oo ku magac dheer Suufi rumaantii aad iyo aad u salaamaya insha Allah taala waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale aan ku gaarno bashbashi barwaaqo anaka aan ku iideyno wadankeena assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو عاصي حيمود عوض وحان سلامة يا ولا عليه مسلمين كل الدون كمال كستكجوغان وحان لا يهي عيد wanaagsan ciida Allah noorooneeyo muslimiinta kor Allah ka dhigo waxa kaloon salaamaya walaashay iga weyn oo joogto magaalada Masar Faadumo Xaymuud Cawad waxa kaloon salaamaya wiilkayga Umar Naaji oo joogo magaalada Ingiriiska waxa kaloon salaamaya xaaskiisa Arwa waxa kaloon salaamaya labadiisa caruur waxa kaloon salaamaya qaraawadeeda dhan oo ku nool dalka Yemen iyo agagaarkiisa waxaan salaamayaa gabadha walaalkayga Gadriya iyo caruurteeda iyo ninkeeda waxa kaloon salaamayaa gabadha walaalkayga oo joogto Canada Muniira Cali Maslax waxa kaloon salaamayaa Seynab Cali Xaymuud oo joogto magaalada Mareykanka waxa kaloon salaamayaa gabadhayda Bahja oo joogto magaalada Mareykanka iyo caruurteeda waxaa kaloon salaamayaa intii ehel iyo walaal iyaan salaamayaa waxaan salaamayaa gabadhayda weynta Zahra Naaji Mas'uud Qadiija Naaji Mas'uud waxaan salaamayaa wiilkayga Zakariya waxaan salaamayaa wiilkayga Axmed Naaji waxaa kaloon salaamayaa Cabdul Qaadir Cali Buuluburte oo jooga magaalada Yemen waxaa kaloon salaamayaa xaaskiisa Luuley waxaa kaloon salaamayaa walaashayda oo joogto muxuu ahaaytay dalka Ingiriiska waxaa kaloon salaamayaa walaashayda joogta dalka Ingiriiska iyadana Faadumo Shiino وكل عام انتم بخير كل مسلمين تمال كستوي كل جوغان وحي ويل اي وحي والد واهي كل وايق سلامني بسم الله الرحمن الرحيم أنا زهر ناجي وحانتك سلامة يا walaalkayga Umar Naaji oo joogo magaalada Ingiriiska iyo xaaskiisa iyo waxaan salaamayaa caruurtiisa walaashayda Bahja Naaji oo joogta magaalada Mareykanka iyo caruurteeda waxaan kaloo salaamayaa wiilkayga Nuuridiin Axmed aan salaamayaa iyo waxa dhammaan dadkii iyo walaashayda Maniira Cali Gadriya Cali Cabdiqaadir Seynab Cali walaashayda Mareykanka joogto iyo dhammaan waxaan salaamayaa walaalkayga Cabdiqaadir Cali Buuluburte iyo xaaskiisa walaalkayga Axmed Naaji iyo walaalkayga Zakariya waxaan salaamayaa walaashayda Qadiija Naaji dhammaan dadkii oo dhan walaashayda Luuley waxaan salaamayaa walaashayda oo joogta أصلي عثمان المهذا ولا شيء ذكره جوكت كندا مريم عثمان ويل كذا لمان سلام
iyo waxaan kaloo salaamayaa walaalkayga cabdicasiis cusmaan xuseen cusmaan cabdulqaadir cusmaan iyo dhammaan xaaskooda kulli inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanaba kulli waa salaaman yihiin waxaan kaloo salaamayaa walaalkayga oo jooga Mareykanka ibraahim xuseen garweyne iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa sakhiir ila kabiir iyo waxaan salaamayaa habaryarteeda maryan macalin iyo xuseen garweyne adeerkayga dhammaan salaan iga guddooma waxaan leeyahay kulli caam wa intum bikheer